hadday wada baratamaan xaqiyo badilkii iselewaana gaalibin barkada hadday wada baratamaan xaqiyo badilkii iselewaana gaalibin barkada haddaan culimada boqrani samahanagu boorinayn tintiyo kutubkii bilnaa barbaharta u soo laqimi nafluhuma baraarugin kuwa xaqa baalmaareye bentiyo medmadowga wada intay culimada boqrani sharkooda ku beegayiin dacwadu ma bariiqateen samahanta qofkii baraxa allow burjigiisa dhowr السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا وناكسن دمان بداوضة يالكو سو دوادا برنامج كيني عويسك علمدا وأدلا سعوتان بشا بركيسان رمضان برنامج كينا عويسك علمدا وحمرتين وقواه شيخ حسن خير درير وكمدا علمدا قبل كأوضل قارهان مقالة بورما كهورنتينا برنامج كوغلين وكما شيخ حسن خير درير شيخ حسن خير درير waxaa uu 1977 ku dhashay magaalada Xariirad dugsi hoose dhexe iyo saraba waxa uu ku qaatay Sheekh Xasan Khayr Dirir magaalada Boorama Sheekh Xasan Khayr Dirir waxa uu intaasi kadib u wareegay macadkii diyaarinta ducaada ee magaalada Laascaanood kadibna waxa uu sanadkii 2002 tagay dalka Pakistan halkaasi oo uu digrigiisii koobaad ka soo qaatay jaamacadda loo yaqaano Jaamicat al-Wifaaq ee ku taala Islaamabad intaasi kadib Sheekh Xasan Khayr Dirir waxa uu dibloomada sare ee postgraduate ka qaatay macadka diyaarinta imaamiyada iyo ducaada ee magaalada Makka al-Mukarrama ee dalka Saudi Arabia Sheekh Xasan Khayr Dirir macallimiintii wax soo dhigtay waxa kamid ahaa Sheekh Cabdiraxmaan Cilmi Xuseen Sheekh Cabdullaahi Cali Jawhar Sheekh Daahir Cabdi Sheekh Cabdinaasir Xaaji Axmed Sheekh Cabdullaahi Cali Geelle iyo Sheekh Yaxya al-Mudarris ragii ay wax soo wada barteen Sheekh Xasan Khayr Dirir waxa kamid ahaa Sheekh Cabdiraxmaan Cige iyo Dr. Xasan Sheekh Cali Warsame Sheekh Xasan Khayr Dirir waxa uu 1989 ilaa 90kii macallin ka noqday Daarul Arqam oo ku taala magaalada Boorama sidoo kale waxa uu macallin ka noqday secondary-ga Al-Aqsa iyo secondary-ga Ubay ibn Kacab oo dhamaantood ku yaala magaalada Boorama 1995 ayaa waxa uu imaam iyo khatiib rasmi ka noqday masaajidka Ibraahim oo ilaa hadda uu sheekhu ka yahay imaam iyo khatiib sidoo kalena uu ka dhigo tafsiirka Quraanka Kariimka Sheekh Xasan Khayr Dirir waxa uu safar dacwadeed ku maray dalka gudihiisa inta badan sidoo kalena waxa uu dibadda ugu baxay safar dacwadeed dalka Djibouti intaas iyo in kale oo badan ayaynu ku qaadan doonaa kulankani oo uu martii inoogu yahay Sheekh Xasan Khayr Dirir waa tahay dhammaan badawadayaal intaas hadaynu kaga nimaadno taariikh nololeedka Sheekh Xasan Khayr Dirir aan marka ugu horeysa ku soo dhaweeyay barnaamijka caawiska culimada Sheekh Xasan Sheekh Xasan ku soo dhawo barnaamijka ma sha Allah aad iyo aad baad mahadsantahay Xamsi haddii aynu toos u gudagalno qaybta ama weydiimaha waxaan jecelahay inaan ku bilaabo runtii sidii inta ogaalkayga waxyaabaha aad u xiiseysa waxa kamid ah akhriska in wax la akhriyo bal haddii aad ku bilowdo talo waqtiyada ugu qiimaha badan ama ugu wanaagsan aad isleedahay akhrisku uu ku fiican yahay waqtiyada baad oran lahayd bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira horta qiraa'adu waa waxyaabaha runtii nolosha qayb weyn ka qaata nolosha qayb weyn oo kamid ah muxuu qiraa'adu ama akhrintu haddii uu qofku wax akhrin waayana oo akhris uu sameyn waayana wax badan ayaa ka maqan ilaahina subhanahu wa ta'ala day umadeenan ilaahay subhanahu wa ta'ala wixii ugu horeeyay ilaahay uu amray qiraa'o ahayd oo nabigeena kaleey salaatu wasalaam aayadii ugu horeysay ku soo degtay waxaad iqra bismi rabbikal ladhi khalaq wax in la wax la akhriyo wax akhrintu marka waa wax aad u qiimo badan runtii anigu shakhsi ahaan aad ugu wanaagsani laakiin waan jecelahay qiraa'ada waan jecelahay iyo kitaabka inaan la saaxiibo runtii waan jecelahay
dadkan aad iyo aad baan yaan arrintaa ugu tirtirsiinaya inay dadku ay wax akhriyaan waxa qofku la saaxiibo uu la noolaadana kitaabka ugu fiican waa kii ninkii shaacirka lahaa ala yaa mustaciira alkutubi dacni fa ina icaaratii lilkutubi caaru famaxbuubi bidi dunya kitaabi fahal yaa saaxi maxbuubun yucaaru marka waxa qofku la noolaada kitaabka runtii ugu wanaagsan marka waqtiyada qofka uu jecel yahay inuu akhriyo dee waa kolba xaaladda qofka ayay ku xidhan tahay waxaan jecelahay waqtigii ay ii suurta gashaba inaan wax akhriyo ayaan jecelahay oo nolosha in lagu daro ayay qiraa'adu ayay ku wanaagsan tahay laakiin in laga dhigin wax iska qadada lagu sugo ama waqtiyada faraaqada lala raadiyo laakiin in jadwalka rasmiga qofka ku tarsado waxaana wanaagsan inuu qofku marka uu qiraa'a murakaza oo aad uu culayska u saaraya oo doonaya inuu akhriyo inuu meel firaaqa ku akhriyo oo booqan lahayn oo jabaqdu yar tahay oo jawi fiican oo haadi ah inuu wax ku akhriyo qiraa'ada qofku aad uu doonaya inuu gunta uga gaadho marka qiraa'adu marna waa tasafux oo qofku waxba iska muxuu ahaa iska baarbaaraya korka xaadis weeyi marna wuxuu rabaa inuu gunta ka gaadho marka waqtiyadaas bay ku fiican tahay runtii waayahay sidoo kale waxyaabaha aad akhriday ama saameynta kugu yeeshay waxaa ka mid ah buugga loo yaqaano sayd alkhawaatir ee uu akhriyey ee uu qoray ibn aljawsi buuggaas bal haddaad eraya laba ka tidhaahdo kitaabka sayd alkhaatir ibn aljawsi uu leeyahay raximah allahu tacaala runtii waa kitaab khawaatira marka kitaabku maaha kitaab ta'liif oo intuu sheekhu meel intuu u fadhiistay ayuu yidhi ou ta'liif ou bilaabay ama alifaad laakiin waa khawaatir sheekha ku soo dhacday wey khawaatirtuna marar badan waxay saameyn badan ay ku leedahay qofka noloshiisa waa fikrado la ururiyey oo qofka kusoo dhacayey mashaakilaad muxuu ahaa afkaar wixii qofka kusoo dhaco qofku qoro wey kitaab runtii muddo imika igu dambeysay laakiin kitaab wax badan muxuu ahaa la saaxiibay buu ahaa waxyaabihii ugu yaabka badnaa ayaan ka akhriyey runtii anigana wax iga saameeyey waxaa ka mid ahaa sheekhu markuu ka warramayey noloshiisa iyo akhrinta siduu jeceli wuxuu yidhi walow qultu inii taalactu 20,000 mujallad haddaan idhaahda buu yidhi waxaan daalacday ama aan akhriyey 20 mujallad oo ka mid a yani kutubta cilmiga haddaan idhaahdo been maan sheegin way ka badan tahay buu yidhi welina waxaan kusii jiraa buu yidhi dalabkii iyo ardaynimadii ayaan kusii jiraa marka waxyaabaha runtii akhrinta iyo muxuu ahaa wanaagga ay leedahay iyo dhiirigelinteeda ka qayb qaatay ayay arrintaasi ay ka mid tahay markaan kitaabka aan eego waxaana moodaa dadku akhrinta inay aad iyo aad akhrintu ay u yar tahay oo daalacashadu ay yar tahay dadka wax akhriyaana qaabkii wax loo akhrinayay iyo dee cilmigu markuu qofka uu doonayo inuu wax akhriyo marka hore waa inuu taxsiil fiican au leeyahay ama waxoogaa gundhig fiican au cilmigu leeyahay tawjiiha sheekhiisa iyo tilmaamihiisa au qaato kadibna wax daalacdo laakiin hadduu idhahdo kutubta iska daalaco iska akhriso waxaa laga yaabaa inuu masaa'ib badan au ka gaadho sidii au lahaa sheekhi abu xayaan annaxwi yadunu algamru biana alkutba tahdi akha cilmin liidraaki alculuumi وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم وتلتبس عليك الأمور حتى تصير أضل من توم الحكيم marka qofku hadduu yidhahdo iska akhriso waxaa laga yaabaa inay meel xun kala dhacdo oo ka soo noqon waayo waana dhibaatooyinka dadka wax akhriya imika gaar ahaan dhalinyarta markay tilmaam fiican waayaan iyo tawjiihin iyo tusaale markay waayaan akhrinta lafteeda inay meel kala dhacdo ama kutub xun ay akhristaan ama kuwa afkaar kala xambaarsan ay akhristaan kadibna taasi ay arrinta keento dhibaato ay keento marka inuu qofku marka hore wax akhriyayo culimada waaweyn oo kale ku daydo ayaa wanaagsan ama culimadiisa uu ka tala qaato kutubta ku fiican inuu daalacdo waa tahay haddaynu intaa kaga nimaadna akhriska dhanka kale waxaan jecelahay inaan wax kaa weydiiyo adigu in badan waxaad wax ku soo baratay xalaqaadka cilmiga masaajidda iyo macaahidda shareecada waktigaa hore iyo maanta farqi baa u dhexeeya waxaad moodaa haddaad aragto masaajidda iyo xalaqaadka wax lagu dhigto dadku aad bay u kooban yihiin maxaad is odhan kartaa isbarbardhig haddaad ku samaysay way isbedeleen halkee wax iska bedeleen bismi illahi raxmaan raxiim horta waa dee su-aal weyn oo u baahan runtii waqtina u baahan
marka la leeyahay hala isbarbar dhigo daraasada ama cilmiga ka baxa masaajida iyo kuwan jaamacadaha iyo madarista ka baxa labaduba fawaid bay leeyihiin oo fawaid badan baa runtii ku jirta masaajidka iyo marka la yiraahdo jaamacadii ama madrasadii marka la yiraahdo masaajida markaan ku horeyno oo masjidku waa meel cibaado oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala lagu cibaadaysanayo marka waxa ku jira waxyaabo badan oo cilmigi kaliya ahayn ayaa ku jira oo ardayga oo ka qaadanaya cilmigi kasta wuxuu ka qaadanaya aadaab badan iyo akhlaaq badan buu ka qaadanaya ardaygu markuu masaajidka soo galo horta marka horeba day weysaysanaya oo cilmigiiba daraasadii iyo xalqadiiba intuuna galin uu soo weysaysanaya wuxuu tukanaya sunnatul wudu buu tukanaya tahiyatul masjid buu tukanaya haday u suurta gasho tahiyatul masjidki iyo sunnihii tukanaya fadhiisashada masaajidka oo fadhiya lafteedu waa i'tikaaf weey oo ajir buu qofkii oo ka helaya waxa inta dheer aadaabta oo qofku u fadhiisanayo ayaa dheer nin sheekh ayaa wuxuu yiri dadku markii hore waxay wax ku dhigan jireen masaajida madrasada la furay buu yiri markii madrasada la furay ذهبت البركة بيقول markii yani markii madrasada ama jaamacadaha iyo waxa la furay hadana kuraasi baa la dhigay buu dadku waxay ku fadhiisanayeen dhulka ku fadhiisanayeen fadahaba tawaadu hadana tawaaduci ayaa meesha ka baxay qofkii aw muxuu hasdul dhigayay iyo edebsigi oo qofku dhulka iska fadhiisanayay marka ninka madrasada ama jaamacad ka soo baxay wuxuu rabaa inuu kursi dheer oo ku fadhiisto oo waxa weey masaajidkii iyo xalqadii hoose iyo wax badan baa ka maqan hadana wuxuu shahaadooyin baa la keenay oo ikhlaaskii baa meesha ka baxay buu qofku cilmigii oo Ilaahay dartii inuu baranayay ee uu rabay inuu Ilaahay inuu ku raali geliyo sidaana uu ku xasilinayay waxay noqotay inuu raadiyo shahaadooyin inuu raadiyo qofku inuu shahaado oo raadiyo iyo darajaadka iyo dhibcaha uu keenaya oo ku raadiyo marka masaajidka waxyaabaha gaarka u leeyahay waxa kamida waxa la soo bilaabaya fununta kamida oo midalan luqada carabiga la bilaabaya meel fiican baa laga gaaraya ilaa iyo in ardayga ku filan baa loo dhigaya fiqhigi baa saas oo kale la bilaabaya oo la dhameynaya xadiiskii fununtii oo dhan baa sida loo wadaya ardaygu marka kitaabkan bilow ilaa dhamaad uu dhiganaya oo daraasaynaya oo muraajacaynaya dib baa loo raacanaya ardaydu way ku soo celinayaan qofkaas wuxuu isku diyaarinaya inuu noqdo sheekh inuu noqdo maadada macallin ku ah oo mudarris ku ah oo waxa weeyaan inuu maadada jabiyo ayuu muxuu isku dayaya laakiin dhinaca kale madrasadaha iyo jaamacadaha fawaid way leeyihiin oo waxyaabo masaajidka aan laga helin baa laga helaya waxa kamid ah ardayga ku dhiganaya midalan jaamacad ama madrasad ama macahad ku dhiganaya waxyaabo badan buu kaga duwanaanaya ardaygan xalqada waxa kamid ah midalan khadkii oo kale iyo qoraalkii inuu qofku khadkiisi wanaajiyo qofku hadii aqoon leeyahay laakiin aanu waxna qori karin waa dib waa naqsi weey qawim khattaka ya dad ta'dubi fa in kunta dha ghinan fa wazinatun wa in kunta dha faqrin fa afdalu maksabin qoraalku waa qurux weey marka qofkii aqoon buu leeyahay qoraalkiina ma garanayo marka arintaasi way leeyihiin macaahidda iyo madrasadaha iyo jaamacadku khadkii buu garanaya waxa kale oo garanaya oo lagu baranaya midalan luqadii qofku tadbiiqinaya kan masaajidka xalqada ku dhiganaya kaliya cilmiga uu baranaya uu fahmaya laakiin tadbiiqi baa ka maqan kan uu tadbiiqinaya oo luqadii buu soo celinaya oo waxa weeyaan uu ku hadli karaya lagama tarjamayo waxa kale oo inta dheer qofkan wuxuu baranayaa mahaaraadkii ama xirfadihii waxbarashada ayuu baranaya haday qoraal tahay haday daalacasho tahay kutub oo daalacdo haday tahay imtixaanaad oo ka shaqeeyo haday ay tahay inuu cabiro cilmigiisii inuu cabiro wax alifi karo ama wax qori karo waxa soo dhan wuxuu ka helayaa madrasadihii iyo macaahidii iyo jaamacadihii intaas uu ka helaya marka waxyaabahaas waxa kale oo heli karaa inuu markiiba shaqo helo ama uu macallin noqdo waayo nooc tababar soo qaatay marka shaqana ma waayo marka laakiin waxa sax ah in labadiiba la isku wado in waxa weeyaan madrasadaha iyo macaahidda iyo jaamacadaha iyo masjidka la isku xiro marnaba ma kala maarmayaan marka qofka masjidkii wax ku soo bartay hadana jaamacad wax ku bartay ama macad ka baxay waa qof kaamil oo dhameystiran waa qof dhameystiran marka kala raba waa kaas weey waa tahay waa isbarbardhigaada qurux badan waxa kale oo iyaduna jirta mowduucda runtii jeceshahay inta badan inaad dhalinyarada kala hadasho mowduuca wadaniyada dhalinyaradu inay dalkooda aaminaan dalkoodu
qiimaha uu leeyahay gartaan muddooyinkan dambe waxaad moodaa waxaa sii fara badanaya dhalinyaro dalkooda ka tahriibaysa oo laga yaabo inay mararka qaarkood dhulal kale runtii ay u socdaalaan ama ay u suudalaan maxaad odhan lahayd runtii ama ereygaad odhan lahayd muxuu yahay qofka dhalinyarada maanta jooga ee laga yaabo waxbarasho inuu dhameeyey ee laga yaabo jaamacad inuu ka baxay ee laga yaabo inaanu shaqo dalkiisii ku haysanin maxaa dhulka ku hayn kara muxuu joogayaa bismillahi raxmaan raxiim horta dhalinyartu dee waa lafdhabarta ummadda weeye haddii ay dhalinyartu inoo toosaan dee bulshada rajo badan ayaan ka qabnaa inay inoo hagaagto mustaqbal wanaagsanna aan yeelano laakiin haddii dhalinyarta ifafaalaheeda ama waxa ka muuqda dee wax mid fiican noqon waayo runtii rajadu ma wanaagsananayso saa darteed in dhalinyarta la guubaabiyo oo culimada iyo dadka aqoonta leh ay guubaabiyaan weliba guubaabin keliya maahine tilmaan iyo tusaale badan loogu daro aad iyo aad bay muhiim u tahay waayo waxaan baaqi kusii jiri karayna wey saa darteed dhalinyarta waxaan leeyahay uun nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi ixris calaa maa yanfacuka wastacin billaah walaa tacjaz qofka muslimkiihi wuxuu aaminsan yahay in ilaahay subxaana watacaala wixii u qaybiyey iyo qusumkii rabbi subxaana watacaala u qadaray inuu helayo haddaad cirka u baxday haddaad dhulka gashay haddaad meel kale ka baxdo waxa weeyaan marna ku saagi maayo nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi waclam ana maa asaabaka lam yakun liyukhti'aka wamaa akhta'aka lam yakun liyusiibaka marka dhalinyarta waxaan leeyahay waan aad iyo aad ugu guubaabinaya qofku isagaa wax iska dhiga qofku isaga ayaa wax iska dhiga aqoonta ay barteen dhalinyartu hadday tahay aqoon diineed iyo hadday tahay aqoon maadiya iyo hadday tahay xirafka kale ama xirfadaha kale ee ay barteenba hadday tahay inay waddanka kaga faa'iidaystaan waayo waddanku uu dihin yahay sidiisii weeyi wax ka maqani ma jiro hadday bad tahay iyo hadday berri tahay dhulku waa sidiisii weeyi marka mar haddii uu sidaa yahay inuu qofku isagu hal abuur sameeyo oo shaqo abuur sameeyo oo isagu fikrad soo kordhiyo oo waxa weeye uu ka faa'iidaysto arrintaas aad iyo aad bay muhiim tahay waxaad arkaysaa dhalinyar badan oo galaya maalan dhaqaalahay galayaan ama waxa businesska la yidhaha bay galayaan iqtisaadiga kulliyadda iqtisaadiga ama dhaqaalaha wuxuu baranayaa sida dhaqaalaha loo muxuu ahaa loo maamulo ama sida loo maareeyo sida dhaqaale loo soo saaro waxyaabaha noocaas oo kale ah marka waxyaaba nadariya uun ama waxyaaba muxuu meel laga keenay marka waa inuu waaqiciisi qofku ku fororsado oo adiga maxaa ku yaala maxaad haysataa adigu dhul baad haysataa maxaygana wixii aqoontaadii inaad ku dabaqdo dhulkaagii iyo dalkaagii iyo dadkaagii inaad ku dabaqdo wey marka dhalinyarta waxaan leeyahay wax la soo koobiyey ama meel kale ka jira inaanayna ku daba wareerin ama aanan muxuu waqti badan iskaga luminin duruufteenna dhaqaale iyo dalkeennan iyo dadkeennan beecadan waa inaan la qabsano macnaha waxa la yidhaahdo muxuu taqalumka ama in lala falgalo oo qofku la falgalo oo nolosha meel kaga hagaago marka meel kale arkayaan ama wax kale u muuqdo marka waxaan leenahay dhalinyarta aad iyo aad ugu waaninaynaa inay cilmigooda waddanka iyo dalka ay kula soo noqdaan jazaak allah khayr waxaan kaloo doonayaa bal haddaynan dib ugu yar noqono dhanka taariikhda meelihii aad ka soo qalin qaadatay saameyntana kugu lahaa waxaa ka mid a macaahidda shareecada bal hadda sawir kooban naga sii maxadkii laascaanood ee diyaarinta ducaadda oo qeyb ka ahaa in uu runtii soo saaro dad culimo ah oo bulshada runtii kaalinta maanta aad ku jirtaan u gala haddaad isku daydo bal dadkii aan soo gaadhin ama macadka aan arag inaad u sawirto macadkaasi noocee buu ahaa bismillahi raxmaan raxiim waxaa kulli waa qeyb ka mid a un noloshaydii baad i xasuusisay marka macad laascaanood dee macad wuxuu ahaa loogu talagalay diyaarinta ducaadda dad culimo ah oo ducaad ah oo diinta ilaahay gudbiya oo faafiya oo risaaladan ama dhambaalkan diinta xambaara ayaa horta loogu talagalay sida magacaba ka muuqata macadu icdaadi ducaad ayuu ahaa waxa isku yimiday oo la isku keenay culimo ducaada ayaa iskugu timid oo marka horeba ducaadaha oo dacwadda ka shaqaynaya baa la isku keenay iyo kuwo ardaya oo loogu talagalay iyagana in lasoo kobciyo oo si fiican muxuu ahaa loo tababaro si ay dowrkooda dacwadeed ay u gutaan waxaanan isleeyahay wuxuu ahaa gobol xaadh aad iyo aad u wanaagsan dadkii meesha hadday culimo tahay haddii ay arday tahayba ka qayb galeen waxaan isleeyahay wax badan bay waddanka ka bedeleen oo
saameyn badan bayna ku leeyihiin wadanka. way haddii intaa kaga nimaadno macadkii laascaanood iyo sawirkaa kooban imisadii baad bilowday inaad masaajid khudbadda ka akhrido? taqriiban waxaan rajaynayaa in 94 ama 95 meelahaas. marka taqriiban waa dhowr iyo 20 sannadood inta imika aad khudbad akhriyayso. waxaan rabaa marka inaan su-aashaydu ay noqoto khudbadda iyo xiriirka kala dhexeeya dhacdooyinka ama waaqaca iminka jira. wadaadada mararka badan waxaa lagu xantaa inaanay ka hadlin waaqaca markaa jira oo mararka qaarkood aad arkayso iyadoo bulshadu ay dareen qabto oo isleedahay talo maanta jimcaha ma lasoo hadal qaadi doonaa in sheekhiina uu meel kale mararka qaarkood taabto. marka xidhiidh nooceeyaba ka dhexeeya oran kartaa khudbadda iyo waaqaca bulshada? bismi illaahi raxmaan raxiim. horta khudbaddu waa waxyaabaha keliya maanta aan haysano dowrka ama kaalinta dacwada lagu guto ayay khudbaddu ay ka mid tahay. dadkuna ama inta badan ducaaduna dowrkeeda iyo qiimaheeda lama siiyo badanka. horta marka hore waxaan leeyahay dee qofka khatiibka ah waxa uu la hadlaya horta fasal maaha. uu ka khatar badan yahay khatiibku macallin fasal u dhigaya. waayo macallinka fasal wuxuu dhigay wuxuu la hadlayaa arday isku mustawa ah, aqoon ahaan isku mid ah, da ahaanna isku mid ah, isku manhaja. marka macallinku wuxuu yaqaanaa manhajka uu gudbinayo, da'doodana uu yaqaanaa, qaabka uu la hadlayana uu yaqaanaa. laakiin masaajidka waxa fadhiya dad kala duwan. waxa fadhiya qof caama ah oo dama, waxa fadhiya caalim, waxa fadhiya qof mujarriba oo waaye araga, waxa fadhiya qof reemiya, waxa fadhiya reemagaal. marka khatiibka khudbad soo diyaariyay raba dadkaas inuu qanciyo hawshiisa ma sahlano. waa inuu dadkaas oo dhan u faa'iideeyo. qofka caamihii waa inuu wax fahmo oo meesha wax kala tego. caalimku waa inuu wax kala tego. qofkan reemiyigii waa inuu wax fahmo oo luqadiisii lagula hadlo. ka reemagaalka waa in lagula hadlo. marka waxa inta badan dhacda dadka khudbada ama dhalinyarta marka masaajidda hebelo inaga buuxin baa leeyahay. masaajidkii waa maanta igu banaanaaday waa lala soo hadlay wuxuu leeyahay inaga buuxin. waa waxba maanta dee waxuun dheebo oranaya waxuun dhee. taasi marka qofkaasi wuxuu fudaydsaday dowrkii ama kaalintii khudbadda ay lahayd horta uu fudaydsaday. wabitaali dadkii dhagaysanayayna uu yaraystay. waxba kama soo qaadinba. marka waxa markaa dhacaya intuu internetka galo khudbada uu kala soo baxo. mararka qaarkood waxaa dhacda inay qaarkood la soo baxaan khudbadaha shiicada, inay la soo baxaan qaar khudbadii shiicada wata ayaa laga reebay, qaarna wayba akhriyeen. waxa ka mid ah inuu khudbad meel kale laga akhriyey oo waaqic kale ka hadlaysa oo duruuf kale ka hadlaysa oo bulsho kale ka hadlaysa in masaajidka jeediyo oo dadkii lan carabiga in badan baa fahmaysay dadkii ay yaabaan. marka arrintaasi waa arrin u baahan in dib loo eego u baahan oo waxa weeyaan masaajidda arrintaasi ama guddida ama dadka culimada ah ee masaajidka maamulaya aad iyo aad arrintaay dib u eegaan si khudbaddu ay u qaadato dowrkeeda ay u qaadato. arrinta labaad khatiibku waaqica waa inuu la socdo iyo wixii jiradii waa inuu dadka kala hadlo. khudbad inuu akhriyo khatiibku waxa ka culus oo ka khatar badan mowduuca uu dooranayo maanta ka hadlayo. wax ka culisiba ma jiro ikhtiyaaru mowduuc. maanta maxaad ka hadli? marka mowduuc aniga maanta munaasabi ah ayaanan qofkan kale munaasab u ahayn. waayo waxay ku xidhan tahay dareenka qofka, dareenka diineed ee qofka ku jira iyo sida uu mowduucan u dareemaya ku xidhan tahay. anigu khatiib inaan mowduuc u dhiibo waxa ka wanaagsan inaan isaga u daayo, laakiin waa inuu qofkan waaqicii iyo duruuftii waa inuuna ka tegin. waa inayna dhicin khatiibka dadku inay u dhiibaan fariin. inamaan maalin soo agmaray marka waxay lahaayeen sheekh khatiiba agmaray. markaasba waxay dhahaan waa kan sheekh hebele maanta maxaan u dhiibnaa? waa niman dhalinyaro iska shaahaya mowduuceen maanta u dhiibnaa. macnaha waxay og yihiin waxa loo sheegay inuu hadhow mimbar ka sheegay. marka inuu khatiibka laftiisu wax badan eego ilaa waxa uu ku hadlayo laftiisu waxay samaynayaan saameyn badan. radul ficli badan baa ka imanaya ama waxa ka imanaya dadka ayay wax kaga soo noqonay. marka waa inuu aad u eego. marka ma sahlana mowduucaasi, waana mowduuc u baahan tababar u baahan iyo waxyaabo badan u baahan weeye. jazaak allah khayr. dhanka kale
muddadaas aad khudbadda akhriyeysay 20 sana in leeg ama ka badan baad macallin soo ahayd oo aad dhigaysay culumta shareecada ee kala duwan haddii maanta arday bilow uu ku yiraahdo waxaan rabaa inaan culumta shareecada barto maxaa tala siin lahayd bismillaahir rahmaanir rahiim ardaygaas doorta marka koowaad waxaan leeyahay doonaya inuu barto culumtii shareecada in horta niyadiisa wanaajiyo cilmiga barashadiisa waa cibaadaduna waxay u baahan tahay ikhlaas inuu qofku ilaahay dartii u barto cilmigan diiniga ama sharciga waxa loo bartaa ilaahay dartii iyo qofku inuu aakhiradiisa ku toosisto oo ku hagaajisto ku suubiyo waajibka diinta ka saaranna aw guta markaa oo diintii aqoon aw qofku yeesho marka in waxaan ku waaninayaa ikhlaas ilaahay dartii inuu cilmiga u barto hadhow wax ku hel xoola ku hel ku shaqayso waa inuu qofku baran nabiga sallallahu alayhi wasallam man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah la yata'allamuhu illa ligharadin min ad-dunya qofka cilmi barta cilmigaasina yaa cilmiga ilaahay dartii loo baranayay waxa uu baranayna ay tahay inuu daldalaal adduunyo ama birbir adduunyo ku helo jannada qofkaas urin maayo marka ma sahlano marka waxaan ku waaninayaa marka koobaad inuu niyada wanaajiyo marka labaad inuu macallin wanaagsan doorto dadka culimada ah ee rabbaaniyiinta waa inuu ku hagaago oo waraysto caalim caamil ah oo cilmigiisana ku amal falo murabbiya walakin kunu rabbaaniyiin caalim rabbaaniya inuu isku dayo inuu cilmiga ka qaato waayo de wuxuu xiri marka asaas fiican qaacido fiican oo cilmiga ku barto ayuu siin doonaa marka halka uu cilmiga ka baranayo iyo meesha dhow ka gaarayo macallinku wuxuu soo dhaweynaya qaabka uu qofku wax u baran karo qawaacid guud buu siinaya aadaab guud buu siinaya tilmaamo guud buu siinaya marka inuu macallin wanaagsan aw raadiyo arinta saddexaad ee aan ugu dardaarmayo waxa weeyaan al-amalu bil ilm waxa uu bartay inuu ku amal falo cilmigu wuxuu u baahan yahay amal fal hadduu qofku cilmiga ku amal falo cilmigu uu sugnaanaya uu xasilayaa uu barakoobaya laakiin hadduu ku amal fali waayo waxaan cilmigu qiimo yeelanayo waxa imika aad u badan cilmiga barashadiisu ay badan tahay laakiin amalkii qofka uu ku amal falayay oo ay ka muuqanaysay diintii iyo akhlaaqdii iyo dhaqankii iyo aadaabtii talabatul ilm waxa weeyaan way yartahay waxa kale oo aan leeyahay inuu ixtiraamkii inuu barto culimada uu ixtiraamo qiimeeyo qadariyo inta uu isagu sheekhiisa ama culimada qadariya isagana la qadarin doona waxa imika aad u badan qofku inuu waxa weeye culimadiisii iyo kuwii wax baray afka ku taago ama uu naqdiyo ama uu xanto marka qofkaas de cilmigiisu baraka yeelan maayo waa waxyaabaha imika jira ee kamid tahay waayahay si kooban weydiinta ku xigta waxaad soo martay safarro fara badan cergaawd wax ka soo baratay laasacaano dalka dibadiisa aad mararka qaarkood u baxday Djibouti Pakistan oo aad soo martay meelo kala duwan safarka si kooban haddaad u tiraahdo muxuu qofka daaciga u soo kordhiyaa baad isleedahay inuu socdaalo bismillaahir rahmaanir rahiim horta de Soomaalidu waxay tiraahdaa ninaan dhul arag dhaayala marka ilaahina waa keen amraabay yaani inaan dhulka marno la shaka in cibar badan iyo waayaragnimo badan qofka uu ka kororsanayo socodka ama dalka gudihiisa ahaado ama dibadda ahaade qofku inuu socdo oo dacwadiisa la socdo waxaan aad u xasuusanahay bariyan miyiga u baxnay oo qaafila dacwiya aan u baxnay ayaan odayo reemiya ayaan soo dhaweeyay wuxuu noo sameeyay asumad buu noo sameeyay waa miyi waa meel buura ah marka wuxuu yiri adeer saddex socodkay ku fiican yihiin buu saddexda mid waan iloobay laakiin laban xasana wuxuu yiri madarka ama roobku socod buu ku fiican yahay buu hadduu meelun ku darooro halkaas buu biyaha ku sii deyn marka daruurtu waxay ku fiican tahay buu dhulka inay sidaa u marto ayay ku fiican tahay si ay dadka wada gaadho culimaduna socodkay ku fiican yihiin buu oo marka de waxa ninkii sheekhiya socday de waa lala kulmayaa buu waxa laga yaabaa in reer dhan oo sugayay oo nin wadaadaho gabadhu meheriya oo in reer dhisa inay sugayeen biladhan baa suurtagal buu ama reerkii oo quraankii u akhriyo ama uu cilmigii baro ama salaadii uu tujiyo marka culimaduna socodka ayay ku fiican tahay buu saddexaadna waa geel saddexaadna waa geel ma sha Allah barakallahu fiik marka culimadu waa saaso marka inay fadhiyaan kuma wanaagsan waa inay socdaan waayahay
si kale waxaan rabaa culimada laftigooda adigii soo tilmaamay dee qofka iyo macalinkiisa iyo qaabka uu qadarinayo waxaan rabaa inaad erey kooban ka tiraahdo laba ka mid ah macalimiintii wax ku soo baray sheekh cabdilaahi cali jawhar oo boorama ah iyo sheekh cabdinaasir xaaji axmed oo laasacaanooda labadaa qof oo laba sheekh oo caalim ah oo soomaalidu ay aada u taqaano maxaad ku sifayn lahayd bismi illahi raxmaan raxiim horta dee laba sheekho waaweyn oo laba buurooda ayaad runtii wax iga weydiisay una baahan mid kastiba u baahan yahay in dee xalaqaad laga duubo runtii kelmado kooban in laga idhaahdana aan munaasib ahayn umana qalmaan runtii haddaan ku horeeyo sheekh cabdilaahi sheekh cali jawhar dee waa sheekha macruufka ee caalimka wadanka geyiga o dhan muxuu caanka ka ah runtii culumta kala duwan ee shareecada iyo luqadana ilaahay subxaana watacaala aqoon ballaaran u siiyey gaar ahaan maadada muxuu ahaa luqada carabiga iyo tafsiirka aayad ku ah waxa kaloo dhan hadda way soo hoosgalayaan maadadu bilaababa runtii aad leedahay tan unbuu sheekhu yaqaana aad is leedahay waxyaabaha cajaa'ibka ee aan tilmaami karo iyadoo waqtigu runtii kooban yahay oo dee waxa weeyaan wax badan oon ka odhan lahay aanan fursad u hayn uu sheekhu leeyahay waxaa ka mid a sheekh cabdilaahi sheekh cali jawhar waa sheekh weyn weeyaanoo da marka culimada waqtigan jooga loo eego waxaan odhan karaa waa hamsatul wasliga isku xidha culimada yaryar iyo culimada waaweyn sifadaa cid leh oo wadanka joogta anugu ma garanayo nin da'diisaasa oo culimada waaweynna wuxu sheegi kara u joogsanayaan haybadiisa aqoontiisa caqligiisa tajribadiisa dhallinyartuna ay u joogsanayaan marka dhallinyartiina uu la fahmayaa waxoodii kuwan kalena uu waxa weeyaan uu soo qaban karaa marka waxa weeyaan waxyaabaha cajaa'ibta ah ee uu sheekhu leeyahay oo cid kale oo loo garanaya ayna jirin inta aniga aqoontayda ah ayuu sheekhu uu ka mid yahay saa darteed ilaahay subxaana watacaala wuxuu yani xal uga dhigay ama maslaxa uga dhigay wax badan in dacwada inuu ka qabto dhib badan oo soo gaari lahaydna inuu ka hortaago waxa kale oo sheekhu uu leeyahay dhiirigelinta guud ummadda waxyaabaha ummaddu inay dalkooda wax ka qabsadaan inay waxa weeyaan dhulka la qoto oo dadku zaracooda ay soo saaraan oo wax la soo baxaan oo dhulka la beerto badda wax lagala soo baxo dardaaranada ugu waaweyna runtii uu ku dardaarmo ayay ka mid tahay iyo guud ahaanba wacyigelinta dhallinyarta inay cilmiga aad iyo aad ugu wacyigeliyo oo muxuu ahaa marka waxyaabo badan oo akhlaaqiyaad iyo dhaqan iyo aadaaba ayaan ka baranay sheekha ilaahi subxaana watacaala ha xifdiyo cimrigiisana ilaahi subxaana watacaala waxa weeyaan ha barakeeyo sheekh cabdinaasir waxyaabaha cajaa'ibta ee uu leeyahay naadirka ah waxaa ka mid a juhdiga ilaahay subxaana watacaala uu geliyey sheekh cabdinaasir dadaalka ilaahay uu geliyey iyo xamaasadda aanan marna hoos u dhacaynin ee ilaahay u geliyey dacwada faafinteeda iyo cumrigiisa iyo caqligiisa inuu geliyo isaga welwelkiisa oo dhan waxa weeyaan inuu diinta ilaahay faafiyo mararka qaarkood ba waxaa dhici karta inuu intaasoo kitaab oo waaweyn oo maraajica oo mid kastiba u baahan yahay waqti in la diyaariyo inuu wada dhigo intaasoo yaraan 3 kitaab 4 kitaabo waaweyn inuu hal mar dhigo kitaabkiisa iyo jawaankiisa ee kutubta uu ku sito ama boorsadiisa weligii isagoo dhigay lama arag sheekh ilaahay subxaana watacaala ha barakeeyo waxa uu leeyahay oo sifaadkiisa khaaska ah ka mid ah dhiiranaanta ilaahay uu siiyey sheekh waxaynu xaqa ku dhiirido wixii uu arkaya xaq inuu ummadda u bayaamiyo isagoo ummadda u naseexaynaya aanan u aaba yeelin dhibta ka soo gaadhaysa iyo waxyaabaha noocaasa maadaama ay tahay mas-uuliyaddiisii ay tahay inuu muxuu ahaa u gudbiyo wuxuu leeyahay sheekhu inuu dhallinyarta u dabacsan yahay oo muxuu ahaa waxyaabaha ay ka rabaan meel alla meeshii ay uga codsadaan ama in muxaadaro uga jeediyo ama kitaab u akhriyo inuu uga faa'iideeyo hadduu rixlo ku jiro magaalada Hargeysa yimaad ama Boorama ama magaalo kale uu tago labada cishe uu joogo inuu kitaab awalka ku akhriyo marka noloshiisa oo dhanba wuxuu hibeeyay ilaahay subxaana watacaala diintiisa iyo dacwadiisa ilaaha barakeeyo jazaaka allah khayr ilaahay subxaana watacaala ka abaalmariyo adigana sidaa kooban ee aad ereyada uga tiri runtii laba ka mid ah
culimada waaweyn oo aan lagu soo koobi karin erey. Su-aasha ugu dambeysa Sheekh Xasan Khayre Dirir waxaa ka mid ah sidoo kale mawaadiicda in badan aad ka hadasho qabyaaladda oo dhalinyarada aad kala taliso. daqiiqad adigoo kusoo koobaya runtii waqtigoyna haya awgii maxaad odhan kartaa 1 iyo 2 iyo 3 wax waa lagaga qaban karaa qabyaaladda? bismillaahir rahmaanir rahiim. horta qabyaaladdu dee waa xanuun khatar ah oo u baahan waqti badan iyo daraasad badan u baahan. waxaan kaga guuleysan karnaa wax kaga qaban karnaa inaan ka dhigno maalan waxa la sheegay aafo qaran, aafo ummadeed inaan idhaahno. marka waa aafo ummadii Soomaaliyeed haysatay guud ahaanba. marka waxay u baahan tahay in dhinac looga soo wada jeesto oo muxuu ahaa meel kaliya laga wada leeshaamo oo laga toogtay u baahan tahay. waxaa loo baahan yahay inaan ku soo darno muqarraraadka in iskuulada ku dhigno, iskuulada hoose, kuwa dhexe, muxuu ahaa secondariyada, jaamacadaha, macaahidda, in qabyaaladu dhibta ay leedahay iyo ummadan yani sida ay dhabarka uga jabisay iyo mashaakilaadka ay abuurtay iyadoo ardayda iyo dadka loo tusaaleynayo in la siiyo. waxaa loo baahan yahay in culimadu dowrka arintaa ay qaataan iyo dadka muxuu ahaa macallimiinta ah. waxyaabaha had iyo jeerna soo kobciyay markasta soo kiciyay iyadoo xogaa laga nastay waxaa ka mid ah siyaasadda ka mid ah oo si runtii qayaxan oo aad u faydan oo dahar saarnayn loola soo baxay baashi oo qofkii mas'uulka ahaa rabay inuu ummad dhan hogaamiyo isagoo reer hebela awalkan soo taagayo. marka haddii la lahaa dadkii hore ama dowladdii hore dhacday ama kuwa dadkaasi qabyaalad bay kusoo ay ku weynaadeen, kuwan dambaa ka qabyaalad badan waayo kuwan waa lagu anqariyey isagoo yar buu ku indha baraqsaday oo dhegtiisa ay qabyaaladi ku soo dhacday oo indhihiisu ku arkay oo baashiiba ku korayba. marka isagoo 8 jir ama 9 jir la reer hebelan iska celino waa mashaakil weey. marka waxay u baahan tahay arrimahaasi in dib loo eego u baahan tahay ummadan si loo badbaadiyo. marka qabyaaladda waxaan leeyahay waa aafo ummadeed weey, aafo in haysata weey, waana bahal u baahan in si fiican loo daraaseeyo. nabigeena kaleey salaatu wasalaam si adag uga digay oo yiri da'uha fa innaha muntina. marka waxaan leeyahay baasha in dhinac looga soo jeesaday u baahan tahay. aad iyo aad mahadsan tahay Sheekh Xasan Khayre Dirir. dhammaan badawadayaal intayn barnaamijkan mid lamid ah ku kulmi doono waxaan intaasi ku soo gabagabeynayaa qaybtan barnaamijka caweyska culimada oo maanta marti inoogu ahaa Sheekh Xasan Khayre Dirir. waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. walaalayaal nabigeena kaleey salaatu wasalaam waxa uu ka wariyay Ubaydillah ibn Mihsan al-Khatmi أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم آمنا في سربه عنده معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا وفي رواية بحذافيرها. نبينا عليه الصلاة والسلام وحي الحديث كاس عبيد الله بن محصن الخطمي أورينيو والنبي صلى الله عليه وسلم قفك واقو بريو isaga oo caafimaad qaba, isaga oo aamina fi sirbi, isaga oo aamina oo naftiisa iyo ehelkiisa aamin u ah, cindahu mucaafan fi jasadi, jirhkiisuna uu caafimaad qabo, cindahu quutu yowmi, maalintaa wixii uu cuni lahana haysta, fakaannama xiisat lahu dunya. wuxuu la mid yahay qofkaasi qof adduunyadii oo dhan ay iskugu timid oo iskugu habar wacatay. wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam xadiidkan uu ku sheegay 3 arrimood oo ka mid ah nicamka waaweyn ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala adoomada ugu nicmeeyay. nicmada koobaad waxa weeyaan waa nicmatul amni, nicmada ammaanka. haddii aanu qofku ammaan haysan, nabad haysan, cibaadadu uma toosto oo cibaadadu waxay u baahan tahay amni, bay u baahan tahay iyo nabadgelyo. qofku adduunyadiisa wax kama qabsado. نعمة الأمن بالله سبحانه وتعالى يعني ينبغي عليه الصلاة والسلام إن حسوسينية سادرت يد الله وحده سبحانه وتعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إلهي وحقوق الله تشاكتي قريش أمني أمانك إلهي سبحانه وتعالى وسي. آخرا إلهي سبحانه وتعالى مركو تلمامي يحويلي dadka muuminiintii marka ay jannada galaan waxyaabaha Ilaahay siinayo waxa ugu weyn amniga alladina aamanu wa lam yalbisu iimaanahum bidhulmin
ulaa'ika lahum اlamnu wahum muhtaduun buu rabbi yihi subxana wa tacaala. kuwaasi waxay leeyihiin amni bay leeyihin, amni iyo ammaan ayaa ilaahay subxana wa tacaala siinaya. marka waa nicmo aad iyo aad u qaaliya nicmada ammaanku, oo loo baahan yahay in laga faa'iidaysto oo ilaahay subxaana wa tacaala loogu mahadnaqo. nicmada labaad waxa weeyaan waxa weeye mucaafan fii jasadi, qofka caafimaad qaba oo caafimaadka wey. nicmatu sixa waa nicmo runtii aad iyo aad u qaaliya. saa darteed nabigeenu sala allahu caleyh wasalam wuxuu ilaahay ka magan geli jiray xanuunka, ayuu ka magan geli jiray, gaar ahaan xanuunada xunxun. anas ibn malik radi allahu canhu ardaa wuxuu yidhi kaana rasuulu llahi sal allahu aleyh wasalam, nabigeenu sala allahu caleyh wasalam wuxuu ahaa kii yidhaahda allahuma inii acuudu bika min albarasi wاljunuuni wاljudaami wa min sayi lasqaam. saas buu odhan jiray nebigu sal alla alay slam, ilaah waxaan kaa magan galay xanuunada khatarta ah, barasta iyo juudaamka iyo waalida ayaan kaa magan galay, iyo xanuunada xunxun baan kaa magan galay. saxaabigii cabdilaahi bnu cumar radi allahu canhuma wuxuu yidhi cabdilaahi kaana rasuulu lahi sal allahu alيh wasalam yadcuu bihadihi dacawaat, kaana yadcuu bihadihi dacawaat, ducooyinkanuu ku ducaysan jiray. maxay ahayn ducooyinkaa nebigu ku ducaysan jiray? wuxuu nebigu odhan jiray sala allahu alيh wasalam allahuma inii as'aluka alcaafiya fi اdunya wاlaakhira, ilah waxaan ku weydiisanayaa caafiya, inaad icaafido adduunye iyo aakhiraba, adduunyadana inaad igu caafido oo jirhkayga aad i caafido, aakhirana aad cadaabkaaga iyo cadhadaada aad iga caafido. wuxuu nebigu sala allahu alay wasalam odhan jiray allahuma inii as'aluka alcafwa waalcaafiya fii diinii wa dunyaaya wa ahlii wa maali, ilaah waxaan ku weydiisanayaa inaad icaafido oo diintayda aad i caafido, caqiidadayda aad ii toosiso, adduunyadayda inaad ilaah i caafiso aad ii toosiso, oo wixii aafe iyo dhibaatooyina ku dhici lahaa maalkayga aad ilaah iga caafido iyo adduunyadayda, jirhkayga ehelkayga inaad ii caafido, maalkaygana inaad ilaah i caafido. saas buu nabigeenu sal alla alay wasalam uu ku ducaysan jiray. nicmada nicmatu sixa waa nicmo aad iyo aad u qaaliya. saa darteed baa rasuulku wuxu uhi sala allahu alay wasalam nicmataani maqbuunun fiihima kaiiru min annaas asixatu walfaraaq. laba nicmo dad badan baa ku dagan oon waru haynin, waa nicmada caafimaadka iyo nicmada firaaqada. nicmada saddexaad ee ilaahi subxaana wa tacaala uu inoogu nicmeeyo nebigu xadiidkan uu ku sheegay waxa weeyaan cindahu quutu yowmi, quudka iyo cuntada waa nicmo nicamka ilaahi subxaana wa tacaala ka mida. in ilaahi subxaana wa tacaala loogu mahadnaqana weeye oo ilaahi subxaana wa tacaala loogu shukriyo. rasuulku sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi allahuma inii acuudu bika min aljuuc fainahu bi'sa dajiic, ilaah waxaan kaa magan galay gaajo, wax lala jiifsado, wax kula jiifsada oo kula barya, waxa ugu xun gaajada ayaa ugu xun. marka nicamkaa saddexda ah buu nebigu sal alla alay wasalam xadiidkan uu ku soo koobay. ilaahina subxaana wa tacaala in loogu mahadnaqo mudan waa nicmada amniga iyo nicmada caafimaadka iyo nicmada ilaahay subxaana wa tacaala inoogu nicmeeyey ee ah in ilaahay subxaana wa tacaala ku siiyo risqigii iyo wixii aad quudan lahayd ilaahay subxaana wa tacaala ku siiyo. wasala allahu wasalim wabaarik calaa muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalem.